waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Garowe goor dhaweyd guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka ee Puntland ayaa ku dhawaaqay 66 xubnood ee baarlamaanka cusub ee Puntland waxaana ay ku soo beegmaysaa iyadoo raggaasi ama dadkaasi xubnaha cusub ay dooran doonaan madaxweynaha cusub ee Puntland oo doorashadu ay dhici doonto maalinta 8 ee bisha January oo lagu wado in halkaasi ay ka dhacdo. dhinaca kale waxaa jirta in magaalada Garowe maanta uu ka dhacay banaanbax ay sameeyeen kooxo dhalinyaro ah oo taageersan go'aankii toddobaadkan ay gaareen guddiga ammaanka doorashada Puntland oo sheegaya in dowladda federaalku ay faragelin ku hayso maamulkaasi isla markaana xubno ka socda Muqdisho aanay iman karin gobolkaasi Puntland. doorashadan maamulka Puntland waxa uu sharaxan ilaa 28 musharax oo doonaya in ay u tartamaan xilka madaxweynaha maamul goboleedka. haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay maxaa laga filan karaa doorashadan. magaalada Garowe waxa qadka si toos ah ugu jira Guleed Saalax Barre oo agaasimaha macadka daraasaadka ee Sidra. Guleed waad mahadsan tahay. haddaan su'aasha ugu horeyso ku weydiiyo maxaa la isleeyahay ahmiyada ay leedahay doorashadan Puntland? farxan waa mahadsan tahay walaal. sidaa la socotid Puntland waxay hada jirsatay 20 sano ilaa 98 ayay ahayd maamul runtii dadka deegaanka aad iyo aad ugu soo runtii hadda ka jiray burburka dowladda Soomaaliya markii burburka kadib dadka deegaanka waxay sameysteen maamulkan 20 sano runtii waxaa jiray nidaam dowladeed oo u shaqeeyay. waxaan isleeyahay doorashadani waxay uga duwanaanaysaa doorashooyinkii kale 20 sano kadib dadka reer Puntland waxaad moodaa dareen xoog leh ayaa jira oo ay tabayaan in 20 sano meeshii la rabay inaan weli la gaarin xiiso gooni ayay leedahay filashadu aad ayay u sareysaa. waxa aad iyo aad loo hadalhayaa isbedelkani inuu noqdo oo dadku aad ugu taamayaan mid runtii saameyn badan yeesha oo dhinacyada nolosha bulshada deegaanka degan oo dhan saameyn ku yeesha oo ka turjuma marka qasabada uu maamulku gaaray. Guleed haddaan ka dhex galo waxaa tiri 20 sano kadib dadku waxay aad u fiirinayaan isbedelada la filan karo. maxaa ka mid ah leedahay in waxa jirta in ballanqaadyo hore loo sameyn jiray oo ah in doorashooyin oo hal qof hal cod ay ka dhacaan gobolka? farxan hadda isbedelkan ku dhacay baarlamaanka runtii laftigiisu isbedel aad u ballaaran weeye. boqolkiiba waxaad ilaa 75 golaha dadka soo galay hadda waa dad cusub weeye oo dhalinyaro u badan aqoon-yahana inkastoo kaalintii dumarka runtii aad iyo aad ugu hooseyso oo hal gabarli ay ku jirto. caqabadaha ka jira deegaanka oo runtii weliba hadda muddooyinka u dambeeyay soo tareeyay waa caqabado aad u ballaaran oo kulligood u wada baahan isbedel dhaba inuu ka dhaco hadday ahaan lahayd dhinaca amniga iyo runtii xoogaa ay culeysa ka jireen gaar ahaan gobolka bari iyo magaalada Boosaaso. dhinaca dhaqaalaha oo runtii uu ka jiro sicir barar xoog leh iyo يعني oo saameeyay dhaqaalihii dadka deegaankan oo dhan. يعني tayada hay'adaha dawladda oo runtii aad iyo aad loogu jeedo inay aad hoos ugu dhaceen. dhinaca musuqmaasuqtii laftigeedu baahay oo hay'adaha dawladda la degay. bixin la'aan mushaharaadkii iyo xuquuqdii ciidamada iyo shaqaalihii waxaasoo dhan runtii isbiirsadeen waxay abuureen jawi qanacsanaan la'aan oo dadku ay aad iyo aad ugu hanweyn yihiin inay helaan oo ay xoog mataqaana ay wafilayaan waliba xubnaha shaqada. laakiin xubnaha hadda waxaa tiri boqolkiiba 75 dadkan waa dad cusub hadda ku soo biiray baarlamaanka. 17 baa dadkii hore ka ah oo ku soo laabtay. laakiin taas ay tahay hal qof oo dumar oo kaliya ku jira tiri. maxaa dhibaatada in hal dumar ay soo gasho baarlamaankii 66 ah maxaa u sababaad isleedahay? farxan xog ururin aanu sameynay 2017 markii dadweynaha aan weydiinay inay taageersan yihiin yani ka qaybka gabdhaha ee xagga siyaasadda runtii aad iyo aad bay dadweynuhu yani majority-goodu ay u taageereen inay ku farxsanaan lahaayeen inay ka kaalin fiican helaan. laakiin waxaan isleeyahay caqabada ugu weyn waxa weeye nidaamkan hadda waxa lagu soo xulayo oo ah nidaam ilaa 20 sano u dambeeyay la isticmaalay oo aan ahayn mid ka qaybgal guud siinaya dadweynuhu inay codkooda soo dootaan idii marka ayaga matali lahayd. taasaan isleeyahay caqabada ugu badan oo haysata gabdhaha inay tahay. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Guleed Saalax Barre oo agaasimaha macadka Sidra ee fadhigiisu yahay magaalada Garowe oo si toos ah nooga warramay doorashooyinkaasi Puntland.